haddaad ka shakisay in Facebook password-kaada la jabsaday. Kuwa jabsada Facebook-ga waxay ka xiri karaan Facebook-gaada, asxaabtaada, iyo qoyskaada. Badbaadso Facebook account-gaada inta aadan daahin. Waxaan ku tusi doonaa sida lagu garto in Facebook account-gaada la jabsaday. Maxaa sameynaya haddii Facebook-gaada la jabsaday? Samee sidan haddii Facebook-gaada la jabsaday. Facebook account-gaada ma la jabsaday? 40 shay samee isla markiiba. Waxaan ku tusi doonaa sida lagu garto in Facebook account-gaada la jabsaday. Hackerka waxay ka tagayaan raad. Si aad u hubiso raadkooda, gal account-kaada Facebook. Waxaad ku dhufataa menu-ga kor, Settings and Privacy ayaad arkaysaa. Waxaad ku xijinay Settings, hoos ayaad aaday, waxaad arki doontaa Security and Login. Halkan waxaad ku arki dhammaan wixii devices lagu isticmaalay Facebook-gaada. Haddaad u baahan tahay dhammaan inaad aragto, ku dhufo More. Markii ugu dambeysay ee la isticmaalay Facebook-gaada ayaa halkan ku arki. Haddaadan adiga ahayn, waxay muujini Facebook-gaada in qof kale isticmaalayo. Maxaa sameynaya haddii Facebook-gaada la jabsaday? Haddaad xaqiijisay in la jabsaday Facebook account-kaada, waxaad sameyni sidan. Waxaad bedeshaa password-ka Facebook-gaada. Si aad u bedesho password-ka, waxaad tagtaa Settings meesha ka muuqato. Waxaad ku xijini Security and Login. Kadib hoos ayaad aadi. Waxaad arki doontaa Change Password. Kadib waxaad gelini password-kaada hadda ayaad gelini. Waxaad gelin doontaa password cusub oo adag. Kadib waxaad dhihi Save. Habka labaad ayaa ah Secure your account option ayaa jiro. Option-kan waxaad isticmaali session aad ka shakisay waqti adiga aad soo galin ayaa laga yaabaa in qof kale uu soo galay oo isticmaalay. Haddii saay waxaad dhihi Not you meel ay ku qoran tahay. Yacni waxaa ku dhufani 3 dhibcood oo aad ka shakisay meel ka mid ah ay ku dhufani. Kadib waxaad arki doontaa meel ah Not you. Haddaad ku sii dhufato, waxaad arki doontaa location-ka device-ka lagu isticmaalay iyo waqtiga ugu dambeysay iyo macluumaad kale. Asaga ayaa step-yadan maraya si automatic ah. Kadib account-kaada saas ayaad ku badbaadsan kartaa. Option-ka labaad ee aad ku badbaadsan karto Facebook account-gaada ayaa ah in aad reset ku sameyso Facebook password-kaada. Haddii hackerka uusan bedelin password-kaada, waxaad u baahan tahay marka inaad Facebook-gaada sida ugu dhaqsiyaha badan inaad ku soo ceshato. Waa inaad isku dayda in aad dib u hesho. Waxaa jira option ah Forgot your password meel ay ku qoran tahay ayaa jirto. Link-gan waxaad ka arki doontaa Facebook-ga login-kiisa hoos. Marka waxaad gelini password-kaada ayaad meeshaas ay ka muuqataa. Kadib option-ka markaad aragto, waxaad arki doontaa meel ay ku qoran tahay Find your account. Marka waxaad gelisaa email ayaa doorani. Kadib waxaad gelinaysaa email-kaada ayaa meeshan gelini. Haddaad geliso Facebook hadduu helo account-gaada, waxaad dooran marka option ah Reset your password. Option-kaas ayaa doorani. Email-kaada hadduu bedelay hackerka, waxaad heli doontaa fariin ku soo dhacaysa email-kaas. Message-kan wuxuu ka kooban yahay link-gaasoo marka aad ku soo ceshan karto aadna ku badbaadsan karto account-gaada. Daawada haddaad ka hesho muuqaalkan, like saar si aad ula socoto muuqaalo kale oo ku saabsan teknoolojiyada. Fadlan saar subscribe, bell-ka icon-na ku dhufo si aadan
ومسجرين مقالة عصب وأن سوق لندن هتكون أصلا تهدى وشذا.